Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xabiibiyaal soo dhawaada meel bad adduunka ka joogtaan. Waa aragtaan oo aniguna youtuberad cusub baan ahay. Haddaan isku kiimicneeyana magacaygu waa Sagal. Waxaan rabaa inaan soo gudbiyo sheekooyin aad u xiiso badan. Weliba nooca aad adduunka ugu jeceshihiin oo soo dalbataan. No problem, anaa idin shaqaynaya aniga. Meeshaan maadaama aan marti ku ahayna waxaan rajaynayaa inaad soo dhaweysaan. Idinkuna waxaan idin leeyahay mininkiinii weeye soo dhawaada waxaad ka gaadhaanba ku boobsiiya. Iga raali noqdo maadaama aan ku dheeraaday. Sheekadan u guda galno. Sheekadan waxay ka dhacday inta u dhaxaysa Algeria iyo Tunisia, gaar ahaan gobolka Khinjala ee Algeria oo xuduud la leh dalka Tunisia. Maxamuud Cabdulqaadir wuxuu ahaa nin Algeerian ah, da'diisana lagu qiyaaso 56 ilaa 57 sano jir. Wuxuuna la noolaa 3 gabdhood oo dhalay. Wuxuuna deganaa tuulo yar oo dadku is wada yaqaanaan. Maxamuud wuxuu ahaa nin deeqsiya, martigelintana yaqaana, soona dhaweeya dadka martida ah, aadna u ixtiraamo jecel. Maalin ayagoo banaanka iska sheexaya isaga iyo gabdhihiisuba, hal marba albaabkoodii waxaa loo soo garaacay si awood leh. Maxamuud wuu kacay, wuu furay, cidna laakiin ma arag. Mar kale la soo garaacay, albaabku wuu furay, qofna ma arag. Markii dambe uu siri malaha waa ciyaalku u ciyaaraya. Adigu habeenkaa way iska seexdeen. Saqdii dhexe markay tahay buu Maxamuud soo kacay. Wuxuu arkay qof madow oo geedka korkiisa saaran. Markuu u soo dhawaaday geedkii mise cidna uma saarna. Wuu yaabay laakiin waxba uma sheegin gabdhihiisa maadaama gabdho ay yihiin ayagu asaga ay ka daran yihiin. Maalinkii xigtay isla qofkii baa albaabka soo garaacay. Markaan uu soo galay Maxamuud buu la hadlay wuxuu yiri waxaan u baahanahay nasasho. Safar baan ka imid Tunisia ka imaaday. Tuuga ay dhacday lacagtii baa laga qaatay. Maxamuud haba iska yaabay ninkii uu soo dhaweeyay uu martigeliyay. Markii wuxuu cuni karay uu cunay iska seexday buu soo kacay. Maxamuud wuxuu ku yiri anigu waxaan ahay nin ganacsada ah oo ka yimid Tunisia kuna socda Algeria. Walaalow arrinkaas ay ugu dhacay waxa aan ku safro ma haysto. Hadday macquul tahay caaw. Maxamed uu ka naxay lacag uu ku safri karo markaas uu siiyay. Waa taga bil kadib ninkii uu soo noqday. Maxamuud buu u yimid. Wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ka casuumo aroos aan ku leeyahay Tunisia. Adigana aan xaflad ma aragtay aan ku dhigo mahad celina maadaama aad soo dhaweysay iyo aqbashay. Macnaha wuxuu leeyahay abaal baad ii gashay, abaalkii waan rabaa inaan kuu gudo. Maxamuud hayuu yiri saddexdiisii gabdhoodna kaxaysay. Dabcan waa aaminay ninka nin wanaagsan buu u muuqdaa inuu abaal u galay weeye. Inuu suxmaalo dabacsanayn buu arkay. Markay yimaadeen tuuladii uu ninku sheegay Maxamuud wuu yaabay. Tuuladan wuxuu siri maxay taa waaba cille. Wuu weydiiyay dadka halka degan maxay ahaayeen. Laakiin waxba kama aqoontii qoysaska halka degan waxay yihiin iyo iska socda. Wuu u jawaabay wuxuu u sheegay tuulada iyo dadka ku noolaaba la baabiyay hadda ka hor. Lagu dhabaabiyay dagaaladii guumeystay. Maxamuud haba baqee wuxuu go'aansaday inuu iska sii socdo. Wax kale oo ka yaabiyo inuu arko. Markay gaareen meeshii xafladda iyo aroosku ka dhacay, wuxuu arkay diyaarad aroosa. Dadkuna ay aad u soo dhaweynayaan. Waxyaabihii cajiibka ahaa ee arooska kala kulmay waxaa ka mid ahaa dadkii arooska joogay waxayba ahaayeen kuwaan caadi ah. Marka la ciyaaraya ciyaaraha waxa loo ciyaaraya si xawli ah oo aan macquul ahayn dee waa dareemi kartaa adigu bini aadan baa tahay si aad isku jijin karin dadkaas isku jijinayaan. Caadi baa isugu xaar lahayd aragti. Waxaas oo dhan ka darnaa waxay ahayd hal nin baa wuxuu wax ku gowracayaa 30 ilbiriqsi taasoo aan suurtagal ba ahayn. Anagu marka ariga qalanano 5 daqiiqo rida waa la qalaa ilaa 20 daqiiqo haraga looga saarayo waa la jarjaraa sax. Wixiiba 30 ilbiriqsi buu ku soo koobay ama 30 sekin. Maxamuud dadkii iska soocay salaad buu meel gaar ah ku tukaday. Mar allaalay markuu salaada ka baxay buu wuxuu arkay mas weyn oo madow oo soo dhex galaya dadka. Ninkii casuumay buu u tagay wuxuu yiri war waa maxay waxa. Wuxuu yiri masaskan waa masas badbaadiye awoowayaasha. Abaal baanan u haynaa. Tan iyo waagiina anaga nala noolaayeen. Wuxuu yiri adiguna istaji waxa ay ku dhimayaan malahan. Maxamuud iska qanac meel buu iska fariistay oo dadkan ciyaarayo dhaqdhaqaale buu aad ugu fiirsada marka. Maxamuud wuxuu arkay dadkan oo si aan caadi ahayn u ciyaaraya. Ninkuna uu gariirayo. Gabdhihiisa la hadlaya waxay ku dhaheen habo ilmahan aad u qabooyin korkooda lama taaban karo. Dumarkana si aad qariib ah bay u ciyaarayaan aan macquul ahayn. Maxamuud gabdhihiisa uu iska qaneeyay wuxuu yiri waxba ma aan waxba ma soo gaarayaan caadi iska dhig. Wax ka yaabiya waa arkaysaa markaadan dadaada la dhaqanahayn aad soo dhex gashay. Habeenkaas waxay cuni kareen bay iska cuneen oo iska seexday. Subaxii markay soo kaceen bay ku soo kaceen ayagoo dhex jiifa guryo burbursan oo waa hore dudumay. Waa soo dhaqaaqeen magaaladii bay soo galeen. Male magaaladu waa meel burbursan oo qashin oo baaday oo hogtay 30 sano ka hor laga guuray. Maba aan batay shala soo dhex marayo camirnay. Waxay socdaan ba adigu meeshii way ka soo baxeen. Magaaladoodii bay yimaadeen. Mar allaale iyo markii gurigoodii soo gaareen waxay arkeen wax boorso ku jira oo guriga ilinkiisa yaala.
yaala waa u soo dhawaadeen waa fureen mise waa dahab boorsadii buu qaaday nin markaa hodan ahaa buu u tagay wuxuuna baaritaan ku sameeyay dahabka inuu run yahay iyo inuu been yahay la arag inuu safeeg ahayn oo dahab run yahay laakiin maxamed wuu weerarsan yahay maxaa khaldan buu isleeyahay isla habeenka marka mid ka mid ah gabdhihiisa waxay ku riyootay ninkii martida ahaa oo riyada ugu yimid oo leh waxa boorsadaas idin siiyay abaalka aad ii gashay iyo wanaag aad ii samayseen maxamed meeshaas uu ka taajiray fariinta sheekada marka martida aan la aqoon gaar ahaan kuwa habeenkii yimaada waa in laga digtoonaadaa laga yaabaa waxaan bini aadan ahayn inaan la kulantid jiniyo inaan la kulantid tuugaba waa laga yaabaa inay ahaadaan hadday marti kuu timaado soo galle waxay rabaan si foofadhe balaayo kasta aadan aqoon iska soo dhawaysan aad baan idin salaamayaa muuqaalkan hadda ka hesheen xaqiisa siiya subscribe saar like noo dheh anigu meeshan waa ku cusbahay waxa awoodaan taabto walaalayaal salaamu calaykum